Barasaabka gobolka Buuhoodle Sheekh Maxamed Cabdulle iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ay ka mid ahaayeen gudida abaaraha heer qaran ee Soomaaliland iyo hay'adda ka hortagga aafooyinka iyo kaydka raashinka ayaa maalintii labaad gurmad ballaaran oo raashin ka qaybinaya gobolka Buuhoodle deegaanada deeqaha raashinka la gaarsiiyay ayaa waxaa ka mid ah degmooyinka Woodwood, Horfadhi iyo deegaanka Dar es Salaam. Bulshada deegaanadan ayaa ka mahad celiyay iyagoo sheegay in maamulka gobolka Buuhoodle uu noqday maamulkii ugu horeeyay oo waxtar muuqda oo isugu jira raashin, biyo iyo dawooyin gaarsiiya guud ahaan gobolka. Barasaabka gobolka Buuhoodle iyo ku-xigeenkiisa ayaa ugu horeyntii halka ka hadlay gobolka Buuhoodle waan saaka ku nimi safarkaas oo ah raashinkii gurmadka abaaraha qaranku ay bixiyeen iyo hay'adda Notfor taasoo aan soo gaarsiinay saamiga ay lahayd degmada Woodwood oo ahaa boqolkii kiish oo aanu halka saaka ku wareejinay dadkii loogu talagalay oo waxa weeye dabadayada fadhiya. waxaan halkan uga mahad celinayaa barasaabka ku-xigeenka gobolka Buuhoodle iyo maayirka degmada Woodwood iyo xoghayihiisa iyo xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Buuhoodle ee ku sugan degmada Woodwood oo si wacan noogu soo dhaweeyay. waxa weeye deelaash shalay hawshaas wadnay fayskii koowaad ee raashin bixinta gobolka Buuhoodle ee gurmadka abaaraha. runtiina waxa weeye waxaan ka bixinay 6 goobood 6da goobood iyo waxa weeye saamiga aanu geynay isma laha. waxa weeyaan dadkii oo dhan waxa weeye waa baahiyaysan yihiin. xaalad adag baa gobolka ka jirta meel kasta oo aad tagtid waxa weeye xaalad waa ways aad iyo aad u sii adkaanaysa. waxaan halkan uga mahad celinay horta gudida abaaraha heer qaran iyo hay'adda Notfor oo waxa weeye soo caawimadan iyo gurmadkanba soo dhiibay. waxaan halkan baaq uga dirayaa dhammaan xukuumadda Soomaaliland oo ugu horeeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan wakiil uga ahay gobolka iyo madaxweynaha ku-xigeenka iyo dhammaan golaha wasiirada gobolka. xaalad adag baa ka jirta intan iyo in u dhow toona waxa weeye waxba ka kafeyn mayso. ilaahay horta waxaan ka baryaynaa ilaahay xaaladda abaareed iyo waqtiga adag ee lagu jiro ilaahay dhammaan waxa weeye dalka oo dhan iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan uu ka soo jebiyo. waxaanu qaybinaynaa raashinkan iga dambeeya oo aad aragtaan oo 100 qoysa si wacan bay hawshaas noogu socotaa waana noo dhamaatay. waa degmada Woodwood baanu ka soo hadlaynaa ilaa shalay waa budnay hawsha gobolka oo dhan Buuhoodle hawl badan baanu ka soo qabanay deegaamadii baanu u soo qaybinay raashinka. ilaahay baa mahad koowaad leh. waxaanu mahad celinaynaa gudida abaaraha ee heer qaran iyo hay'adda Notfor madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. markaan xagga abaarta ka yar warbixiyo xilli agu waa adkaaday nin baa nin ku yiri aan kaba ku iibiyo bari baa la yiriyo markaasuu lambarkii qaatay wuxuu wallahi 612 way isaga baahna. wallahi abaarta ka jirta deegaamada Soomaaliland oo dhan bari iyo galbeed waa abaar daran laakiin gobolka Buuhoodle waa ka sii xag jira. oo aanu maalintii labaad ka bilownay raashin qaybintii ay gudida abaaruhu ay ugu tala gashay degmadan oo ahaa 100 qoys. 100kii qoys maanta waxa weeyaan waa kuwa dadkii loogu talagalay ay qaadanayaan. insha Allah gudida abaarana waxaan ugu baaqinaa hadii Allah ka dhigo bilnay la dadaalan xaaladda gobolka oo aad xaaladeeda abaareed aad uga sii dareyso baahiyahoodana ay aad ugu dhagan nuglaadaan taasoo wixii hore la keenayna sidii loogu talagalay ay u fushay. markhaatiyaal aanu ka nahay dadweynihii iyo wixii loo soo dhiibay adab iyo taayada cuntaba taayna ay maragma doontahay oo la arko ay halka ka fushay. marka waxaan leenahay faano la farakama qodna dadkani biyana ma hayaan cuntana ma hayaan xaaladooduna aad bay u adag tahay. dadkana dad xoolo dhaqataa bay ahaayeen xoolo dhaqatadina xoolahoodii hadda iimalo cidina kama iibsato. marka dadku haddeer waxa ay khatar ugu yihiin inay gaajo u leedaan. gobolka degmada Woodwood 100 qoys oo cadeynteeda ay aad aragtaan oo halka ay fadhido oo wakiil uga ahaa barasaabka gobolka Buuhoodle ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Sheekh Maxamed Cabdulle iyo barasaabka ku-xigeenka Axmed Cabaase isuduwayaasha iyo xildhibaanada 100kii qoys ee loogu talagalay in la siiyo raashinkaas 100kiiba waa kuwa halka fadhiya. aad iyo aadna waxaan ugu mahad celinayaa gudiga abaaraha. goobtan aan joogno waa Horfadhi oo ka tirsan gobolka Buuhoodle. sidaad arkaysaan raashinkan oo 50 qoysa ayaa gudida heer qaran ee Jamhuuriyadda Soomaaliland soo gaarsiiyay gudida heer gobol ee gobolka Buuhoodle. waana ognahay tirada iyo baahida badan laakiin alxamdulillah rabbil caalamiin kani waa hordhac ilaahay baa mahadle. xaggan anoo matalaya gudida heer qaran ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee gurmadka abaaraha halkan waxaan ka cadaynayaa
raashinkan waxa la siiyey dadkii lagu talagalay la siiyo ee baahnaa waanan ognahayo tirada iyo baahida badan laakiin alxamdulilaahi rabbil caalamiin qodob baan xaggan ka cadaynayaa dadweynaha dhageysanaya iyo kuwa kaleba runta gudoomiyaha walaalkeen nasteex annagoo joogna guddida abaaraha heer qaran mar walba codsiga iyo dalabka iyo dabagalka isagaa le jazaaha allah khayr xaggan waxaan ka cadaynayaa ninkan idinku idin maqan yahay haddee tahay qaybta biyaha caafimaadka nabadgelyada kaabayaasha bulshada raashinkanna waa hordhac biyihiina uu keenay gobolka Buuhoodle aniga barasaab gobolka Buuhoodle waan raashinka inaan uu soo gaaray baan cadeynayaa waxaan cadeynayaa karin goobihii loogu talagalay sidii ay ahaayeen aan u gaarsiinay waxaan halkan wax weeyaan aan uga mahadcelin uga dirayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo guddida abaaraha heer qaran wax weeye gobolku waa gobol aad u ballaaran runtiina waxa weeyaan kuma filna intan iyo in leegtoona insha Allah laakiin maalin baynu insha Allah waxa weeye talaabo qaadi doonaa raashinkiina waa waxa weeye sidii ay ahayd baan goobihiisa u geynay waxa weeye waxaan cadeynayaa waxa weeye in gobolku nabadgelyo yahay waxa weeye wax dhibaato aysan jirin waxa weeye waxaan kaloo aan codsi dheer u dirayaa hay'adaha caalamiga iyo gobolka maxalligaaba in gobolka xaalad abaareed iyo waqti adag baa ka jira in arinta wax weeye ay wax ka qabtaan salaanka bacdi waxa weeye waxaana soo gaadhay raashinkii abaaraha oo 100 qoysa baa soo gaadhay deegaanka Daar es Salaam marka ilaah baa mahad iska maanta loo qabtay annaga haddaanu nahay degmada Daar es Salaam tuulada Daar es Salaam haddaanu nahay aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa barasaabka iyo wafdida abaaraha oo uu horkacayo dhammaantood waa u mahad celinaynaa ilaahay baa mahadda koobaad leh iyo hay'adda nagfoor waxba waanu mahad celinaynaa cabdi khalaq wadani telefishinka caalamiga ee bulsho Woodward